وأن سلام يا دمانتين وهري رئيس الوزراء آد أيام وما هنغينا قدوميها جوال كبنادر أنا دوق مقالة صاحبك عبد الرحمن عمر عثمان عشان شرفت بدن قروح بدن ونوع عزوم نوع سوداوي iyo intiina ka soo qayb gashay iyo intii kale madadaalada iyo maawirada fiican fanaaniintii halkan ereyada fiican qiirada leh ka yiri aad iyo aad bay iyana u mahadsan yihiin waxaan u maleynayaa saaxiibaday baa wixii aan oran lahayn yiri shirkii aan ka soo qayb galay wuxuu ahaa waxaan kaga hadalay muhiimadda ay lahaayeen in badan ayaga ka hadlay oo yiri waxa badan aniga ii haray ma jiraan runtii waxaan runtii aad u faraxsanahay in aan arkayna fanaaniinteennii nakruumay iyo hibe maxamed aragtidoodu iyo imaatinkoodu waxay leedahay dhadhan bay leedahay dhadhankaasina waxaa weeye waa xusuus wanaagii aan lahaan jiray uu dalkeennu lahaa wey waxa naga dhumay oo aanu doondoonayno bay waxay u yihiin muuqaal u yihiin marka waa inaan aragno inoo yimaadaan waa ku mahadsan yihin nakruum waxay tiri waa la noqonayaa markay xagga joognay ahayd hadda waa la soo laabtay waa joognaa marka waa inaad tirahdaan mid kale oo qaadaan waa la nagaanayaa in las joogo kaasaan u baahan dhanka kale caasimaddii soomaaliya weeye qof walbana kolle xusuus gaar ay ku leedahay aniga waxaan ka shaqayn jiray building halkan ku yaalo wasaaradda lacagta la yidhaahdo ma garanaysaa ma xasuusataa waan garanaynaa marka say u ekayd nooca ay ahayd quruxdeedii waxaa la odhan jiray the pillow of the Indian Ocean pilowka ma garanaysaa benedii sheegi mayo waxaan xasuustaa nagoo 9 saac haynimo 3 dambe inta liida ka nimaadna waxaan tegi jiray aan deganaa meel African Fridge agteeda oo 3 haynimo ay tahay oo cid ka baqaysa aysan jirinin oo waxa kaliya oo muuqdo aragtay ahayd oo tootadii hameenkii socon jirtay garanaysaa iyo minishii biyadii jidkan Makka Mukarrama ka shaqayn jirtay oo nadiifin jirtay oo dhaqi jirtay wala dhaqi jiray laamiga dadku waxay leeyihiin ciidan tirada badan oo meel walba anaftiga la yaabo moogta xagee ka timi kaba aad gashato meesha yiraahdo liido aad u lugayso lacag ma jiro waagaas anagoo de fakhra dadku iska hayo man awood taxi inaan qaado markaan aan lugayna weey hadii basasku ay hameenkii go'aan kaba aad qabtido iskaarbada oo maanta soo luujtaysatay iyagoo oo sidoodii ah oo quruxdoodii ayaad gurigaaga tagi jirtay xamar saasay ahayd muhiimadda ay leedahay xamar waxaa weeye wejiga Soomaaliya waa xamar reflectionka qofka wejiga Soomaaliya waa xamar haddii hagaasanaato oo qurux badnaato oo caafimaaddo Soomaaliyana waa caafimaadayso laakiin xamar haddaysan qurux badnayn xamar hadday jiran tahay xamar haddaysan wanaagsanayn way dhib badan tahay Soomaaliya inay wanaagsanaato wayna muuqataa oo hadda in badan oo Soomaaliya ayaa xalaq yaabeen nabad tahay laakiin xamar muhiimadaas ayay leedahay waa rajeynaya insha Allah way qurux badan tahay oo hadda waaga anigu aan joogo ra'iisul wasaaraha ahaa iyo hadda wax badan baa u dhaxeeya difference u dhaxeeya marka way muuqataa fafaalo waa muuqdaa rajada waa muuqataa in halka laga sii wado qof walbaaba tarsan baa jooga markaan ugu ahaa prime minister saaxiibkay marka uu garan karaa uu og yahay mareynaya marka qof meel buu gaarsiinaya injineer Yariisow waa nin wanaagsan waa saaxiibka ila soo shaqeeyay waan isleeyahay waa ku habboonaa waqtiga iyada ah in uu meesha yimaado
waana ku talinayaa inuu ku dardaarmaya niyad wanaagsan buu leeyahay nin wanaagsan weeye inaad la shaqaysaan horena u socotaan insha allah haddii ilaa yidhaahdo marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin cashada waa ka mahadnaqaynaa khayr iyo guul baan idin rajaynaya soomaaliya ha noolaato waa mahadsantihiin